nimankan sir weyn baa laga hayaa markaan idin leeyahay nimankan sir weyn baa laga hayaa waa tan oo kale Ethiopia waxay soo dirsatay helicopter sahan ah iyo ciidan halkii ay ka degi lahaayeen Sayla Xamse iyo Xasanna waxay taagan yihiin dekad baan u disiinayna Abiy Ahmedna maanta golahoodii guurtida buu dhex fadhiyay wuxuu taagan yahay yaa idin weydiiyay yaa dekad idinka raba annaga dekadaha iyaga inay wax uga soo degaan inay adeegsadaan diyaar baan u nahay yaa ku weydiistay دكدن الله أرد سيديا إدين ويديي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنو ونكسن دمان ومدة الصومالية جوب كستي جور كستا أتشوكتان وبرنامج كأني افتمنتو أي نسكود دول تاجينو إثيوبيا أو صدر ستي عيدا سهن ديارة هليكوبترا أي صدر ستي وحي إندينيسا أو سحامينيسا ماشي أي كده جلهاين سيلا يلوخيا dhulka xeebta ee Soomaali galbeed ay ku leedahay meeshii ay ka degi lahaayeen iyo Abiy Ahmed oo maanta golahoodii guurtida iyo odayaashoodii iyo jilib culustoodii intuu u tagay yiri war dekadan iyo waxaan ka shaqeynayaan anigu garan maaye dagaal baan diyaar u ahay badina waa u socdaa waxaan kaloo rabaa qodobka labaad inaan isku dul taago caalamkii waxa ka bilowday dagaalka badda wax la yiraahdo oo lagu tartamayo la isku leynayo خيرات كبدة كتيرة عالم كي وحي دول كيالي ولا صلاة قالي إسلام با وها هراي ما أنت أو اللي سكود دليا أو اللي سكود أريا أو ميل والبمراكيب تقوه جنسا وخيرات كي بدأ إثيوبيانا إنه قد تاجم بوحدون إسا بدنا خيرات كتيرة إنه يضو دحشو مدح كشاجي صومالي دنا والله بالله تالله وركع مركع شيء مدوين حسن منافق حمزة محبوس مدحدا الصوماليدا كوا شيكتين مدح كنتي ما أنت تشوجا سير وين إلهي با وين واحدة سير وين بالله حيا لبا ميدون وين متصدحاد ولا أنا يوتشريني باللي يطلع نما إن سير وين لقى حيو أو دقن كي يهود كوسمين شيء عربت كوسمين شيء دلوا كوسمين أو نما كان يقول فرح وين يفيديو يلقى دوبي بل هذا إيجي iyo nimankan inay khaain wadan yihiin oo ay dhulkii badiba iyagu iibsadeen labada kama sokayso waliba waxaan u badinayaa in fiidiyoyo foolxuma laga duubay caalamkana waa ka dhacdaa rikaatada caalamka waa la isku qabsadaa yuhuud waxay Falastiin ku qabsatay ee waxa weeye carab oo dhan maanta u hadlaadahay oo amiirada iyo kuwa boqorada sheegtay yuhuudda waxa weeye dabada ugu dhaqayaan fiidiyoya laga hayaa kulligood fiidiyoya laga duubay يو سكلا يو لا فرح حمينيو وكوا ما هذا كران مانت نمكن ندقن كيهود إثيوبيان كواليين أمرينيا مدحكو شاقة ذلك ما توتليا إن فيديو يلا قدوي تصالي الرواقصيني بلا ديجي إثيوبيا يا أبي أحمد وحي تاجيهين أو الدولة الصومالية مدحكو شاقة أفكو ذا كعديين إن إثيوبيا تري أنا وبضا مرحب أنا ودك هذا مرحبنا dekad wax la yiraahdo iyo heshiis iyo dekad aanu qaadano iyo mid aan wax kala soo degno midna anagu ma doonayno maxaa rabtaan waxaanu doonaynaa bad Soomaaliya ay leedahay inaanu qaadano waa khasab inaanu bad helno hadaydan heshiiska diyaar u hayna iska taga xoog baan ku qabsanayna warkaas oo leeyno wacdayn soo wasiirka arrimaha dibadda fiqi inoo ma sheegin ilaa iyo hadda nimankan in sir weyn laga hayo baan idin sheegaya waliba khaain wadanku waxay noqonaysaa 40% laakiin 60% nimankan in sir weyn laga hayo baan rabaa inaan idin la wadaago Xamse Maxbuus meeshii uu shalay tagay ee waxa weeye uu lahaa kaaga daran ninkaas wuxuu ku hadlayo dhalinyaro Soomaaliyeed baa daba fadhida meeshay laad la dhici lahaayeen oo ku orin lahaayeen oo ku qaylin lahaayeen xitaa dhalinyaradii Soomaaliyeed maskaxdoodii baa la meelay bromwash wax la yiraahdo maskaxdoodii baa la dhaqay eegay qalbi caruur bay noqdeen damiirkii baa ka dhintay waxay dhalinyarada Soomaaliyeed bal wadahaan cunaan anu garan waayay wax la siiyay baladeegay Abiy Ahmed meesha uu kala yahay waranu dekada mar rabay badaan rabaayo haddeer aan dina hadlayo waxa meesha liyada Sayla iyo lughaye inta u dhaxaysa waxa weeye galbeedka eegay waxa wareegaysa diyaarad helicopter ciidan saarayay mid la tahay Ethiopiana oo waxay indaynayaan waxay basi qiyaasanayaan meeshii ay degi lahaayeen oo saldhiga ka dhigan lahaayeen
waxaad ogeydeen doraad in kan afhayeenka Itoobiya oo inuu yiri anagu Soomaaliya kama baxayno Soomaaliya anaga waxna la ka weydiinaya ciidankaygi baa joognaa hadaan la ku soo dirnay meel aan uga soconaa ma jirto haddaba maxbuuskii oo wali wuxuu taagan yahay waxaan idin sheegayaa in wax weyn khaldan yihiin waxaan de iimaan la'aan lama oran karo damiir xumo lama oran karo dadnimo xumo lama oran karo doqoniina lama oran kare eegay waxbaa jira nuqdatayn fawqal bacd waxbaa halka ka guuxaya xamse maxbuus wuxuu leeyahay annagu waxaan ugu ogolahay dekadaan u ogolahay dekadaha ayaa weydiistay nin dalkaagi weerar ku ah caalamka lama arag oo lama maqal oo lagama sheekayn nin dalkiisi weerar lagu yahay eegay wixii madax caalamka soo martay tamar kasto oo ay lahaayeen eegay lama arag oo lama maqal nin dalkiisi le nin kale ku bariyay uu leeyahay mar rabe dalkaagaan rabaa inaan qaato bal xamse maxbuus ila daawada iyo abi axmed wuxuu yiri bal hadda eegi annaga dekadaha iyaga inay wax uga soo degaan inay adeegsadaan diyaar baan u nahay bal yaa weydiistay annaga dekadaha iyaga inay adeegsadaan inay wax kala soo degaan diyaar baan u nahay war nin colaad inaga dhaxayso oo dagaal ka ab inaga dhaxeeyo oo maanta dalkaaga ku soo xadgudbay adigoo ra'iisul wasaare Soomaaliyeeda sideed afkaaga u soo marisay Itoobiya ayaan waxaan u ogolahay dekado warka waxaan idin sheegay 4-5 cisho ka hor baan idin sheegay Soomaaliya inay ku bariyayaan inay 4 dekadood Itoobiya qaato oo ay lihi u qaato 50 sano 60 sanadood ay haysato bari kamaalna ay la wareegto nimankani waxay laayihiin qaabkii ay Itoobiya dalka u siin lahaayeen Itoobiyana waa fahmi laadahay nimankani waxay rabaan Itoobiya inay dekadaheena iyo badaheena siiyaan oo 20,000 oo ciidana ay soo gashadaan oo badda sida kula wareegaan laakiin Itoobiya fahmi la warnin kule dalkaagi baan rabaa inaan boobo badaadan u socdaa sideed ugu ogolaan kartaa oo ugu bari kartaa waliba garka ugu qaban kartaa inaad dekadaysiisid haddaan daalin ahayn eegay ama aadan fiidiyo laga duubay dalka dhan aadan dhaafsanayn xasan sheekh iyo xamse cabdi barre muuqaalo folxun baa laga hayaa dalka xitaa dal iibsi maaha waxani waa nimanka rikaatay ku jiraan waana wax caalamka ka dhaca hadii adiga wax way kula taalada ma dhici karto waa wax soo jireen ah waa wax Falastiin lagu qabsaday wuxuu leeyahay dekad baan u ogolahay waa kaale dalkayga qaado isla wuxuu leeyahay no inina ma dhiin anigu minister ganana ma ogoli macnaha bicha inata buu leeyahay ma ogoliye dekad badaan rabaa siday Uganda u adeegsato Mombasa waxaan ogolahay oo kaliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kala ah oo sida Uganda ay ula ganacsataan ku sheegay walina anu waxaan rabnaa inay si nabada nimankaas ee aan dariska nahay inaan ku heshiino oo deedna aan daris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheena u kubco oo kala faa'iideysano bal idinku ka warrama waxaan rabnaa nabad iyo walaalnimo inaan wax ku kala weedaarsano dekadaan u ogolahay heshiis caadi ah rabnaa sida Uganda iyo Kenya heshiiska ka dhaxeeya waa heshiis ku dhisan laba dawladood oo waxa weeye dawladda kale ay og tahay waxa ay tahay Tanzania badeeda yada xukunta dekadaheeda yada xukunta yada cashuurta qaadata ayada ka shaqaale ka ah fahmaysa waxa iyadu qoondeysaba ka qoondeysma adiga maanta waxaad bariyaysaa dekadahaagi waxaad ku bariyaysaa Itoobiya inay wax ku leedahay badan qaadanaya xilligan aan hadda idin la hadlayo Itoobiya Soomaali galbeed gobolka awdal baladeege awdal bay joogtaa lughaye iyo saylac bay wareegaysaa helicopteradoodii baa wareegaya ciidankoodii waa wareegaya saldhig bay waxa weeye rabaan inay ka sameystaan abi axmed maanta wuxuu ku hadlay waa maqlaysiintii inuu dekada ma weydiisan buu yiri xaasha lillah dekada anu ma weydiisan baddaasaan leeyahay baddaana waa qaadanaya waxa kale musiibo ah oo mi subxaanallaahi ah eegay qowsaarkaas doqonka ah eegay ee xamse maxbuus meesha uu ka hadlayo dhalinyaro Soomaaliyeed baa tifka ah hal qof oo dhalinyaro intuu soo kacay weydiiyo warnin dalkeeni weerar ku soo ah sidee dekada ugu ogolaanaysa ninka dekada kuma wadi dekadahan baasa tunka ku sidataan eegay oo aad damacdeen farmaajo inaa ku shaabadaysaan oo idin socon weyday dalka saad nimanka ku siisaan baad laadine dekadahan yaa idin weydiiyay hal qof oo dhalinyaro ah weydiiyay ma jiro annagu waxaan ogolahay inaan dekada siino heshiis caalamiya
walaalnimo aan ogolnahay nabad inaan ku wada noolaano la yaab ma laha Itoobiya oo Soomaali galbeed ayaa Soomaali la ilowsiiyay eegay oo Itoobiya laga dhigay oo Xasan isagu gacantiisa ku saxiixay oo jigjiga ka degay oo NLF ku yiri waa injire iyo waa ubo NLF ku dhaxay inta cajeer daaf iyo bir la siiyay kan maxbuuskina waa kan meel allaaliye meel laga mudaharaadayo baarlamaan hadlaya cid qaylinaysa cid ka jawaabaysa miyaad aragteen Soomaaliyeed Maxamedi haddaba anu waxaan idin sheegayaa ilaa gudoomiye baarlamaan ilaa madaxweyne ilaa ra'iisul wasaare ilaa wasiiro nimankan muuqaalo fool xun baa laga hayaa nimankan in la soo qarxiyo bay ka baqayaan run ma doonaysaan in la soo qarxiyo oo waxa weeye iyagoo la faraxumeynaya la keeno bay nimankan ka baqayaan ee dalkan aynu u kacno dhalinyaroy war damiir aan isu yeelno war waxan waa dhaxalkeeni war adduunkii dagaal baa ka socda adduunkii ilaahayga dagaal baa ka socda khayraadkii badda la isku leynaya badden waa buuxda maanta Itoobiyaan xuno uraya oo awoowayaasheen hilib ceedin siiyeen eegay baqdin ay ka baqayaan ay wax karsan waayeen maanta hilib ceedin ay cunaan in maanta baddeena ay damacdo oo 2 nin iyo 3 nin oo sir laga hayo dalkeenni u wareejiyo waxaynu u dulqaadan karna maaha kacdoon baa inoo bannaan Soomaaliyeey waliba dhalinyaroy kacdoon baa inoo bannaan inaynu meesha ka kacno oo nimankan madaxtooyada ugu daadano oo fiil qabyaale ka eriyano oo aynu dad Ilaahay yaqaan dalka kaysano oo aynu Itoobiya saynu ula dirir lahayn isaga celin lahayn eegay difaacu nafsi saynu u gelin lahayn oo dalkeena u dhacsan lahayn ba Soomaaliyeed inooga fadhiya waliba dhalinyaroy rag iyo dumarba wallahi billahi tallahi nimankani warkooda waa cadaysteen sida ay lookaalada uga qunuudayaan dekadaha idoo galay dekad baan yaa weydiistay dekadaha yaa dekada uga baahan warnin naagtaada raba inantaada kuma qanaco horaan idinku sheegay eegay Itoobiyana way soo gashay dalka sahankoodina waa yimi inagoo sida u farfadhino waxa la yaabanahay damiir xumida media cid ka hadlaysa ma jirto cid mudaharaad meel ka dhacay garan maysid baarlamaan is haystaa ma jirto meel ajandaha lagu furay ma jirto shidanba Itoobiyana sahan bay ku jirtaa waa kuwa madaxdii dalkana midna masaajid local yar buu ka dhaxtagay yeeli horta kelmadda liyaado yeeli mayno qaadan mayno inta windaga lori waxba kama jiraan wax allaale iyo wax ka jira ma jiraan dhalinyaro hela diyaar garow haloo diyaar garow dalkan sidii loo dhicin lahaa waxaynu ka bilaabaynaa kuwa fiil qabiyaala ku jira inaynu iyaga madaxtooyada ugu daadana horta lambar 1 lambar 2 markaas aynu wax iska celin karnaa baladeegay qaadkoodii baa Soomaaliya ka degaya diyaaradoodii wax ma arkay dad wax ku qanacsan Hargeysa Soomaaliland waa laga saarayo waxay ku qoreen Soomaaliya Hargeysa Soomaaliya war waxaas ma guulba dalkaygu buu soo socdaan ku see diyaaradu uga shaqeysa dalka see qaadkiisu Soomaaliya uga soo degaa or hal diyaar garoobo dhalinyaro hal diyaar garoobo nimankan muuqaala laga hayaa waa niman la faraxumeeyay rikaata lagu haystaa in la soo qarxiyay ka baqayaan dalkeena aynu dhacsano muhiimad waa inta meel kasta aynu joogno wuxuu yiri laba meeshaad ku joogtaan dagaal laabta ka ogaado luqunta hadii la idin jaro lugaha meersha buu yiri bala deegay waa inaynu dagaal u diyaar garownaa dagaal waa inaynu u diyaar dagaalka ugu horeeyana madax ku tida fiil qabiyaala fadhida Xamse Maxbuus iyo Xasan Diiqaynu ku qaadaynaa markaynu kuwa meel iska saarno ayaynu Itoobiya u soo jeesanaa rag dhalayna aynu dalka u dhiibano oo waxa weeye dhalinyarada aqoon-yahana baynu leenahay waxa weeye geesiyaal baa dalka Soomaaliya ka buuxa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare si degdeg ah weynaynu u dooranaa kuwana weynaynu meesha ka saarnaa barnaamijkaasi shargaraya oo isgaarsiyo dagaal u diyaar garooba warsanay nabadino salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh